Hello everyone, waa macallinkeenii Maxamed Cali Faarax. Halkan waxaan doonayaa videogan in aan idinku tuso sida aad marka accounting period ku dhamaado temporary accounts-kii xirmi jiray aad u xiri karto. Waxaan doonayaa in aan ku tuso si yar oo fudud oo aanad weliga ilaawin closing interest-ka. Marka tallaabooyinkaynu qaadi doonaa waa kuwan iyagoo sawirana waan ku tusi doonaa. waxa ugu horeeya ee aad xiraysaa waxa weeye waa revenue-ga. revenue balances-kooda waxaad ku wareejinaysaa account la dhaho income summary. marka aad revenues ka xirayso revenues-ku caadiyan waxay lahaayeen credit balance. markaad xirayso balance-goodii waxaad geynaysaa debit ayaad geynaysaa intii credit-ka ugu jirtayna waxaad ku credit garaynaysaa income summary-ga. marka xigta waxaad xiraysaa expenses-ka. expenses-kana iyagana income summary-ga lagu xirayaa. income summary-gu waa temporary account, isaga laftiisa ayaa la xirayaa oo isagana waxaa lagu xirayaa return earnings. return earnings-ka markaad income summary-ga balance-giisa ku wareejiso dividends-kii baad xiraysaa hadday jireen oo dividends-kana waxaa lagu xirayaa return earnings-ka. marka accounts-ka la xirayo laba waxaa lagu xirayaa income summary-ga waa revenue-ga expenses-ka, labana waxaa lagu xirayaa return earnings account-ka oo waxa weeye income summary-ga iyo dividends-ka. dhaatadana aynu ku qaadan doonaa marka aynu tusaalaha qaadayno. waxaynu assume garanaynaa inaynu revenue 5,000 haysano, expenses-na 3,000, waa 1,200 oo dividends-na aynu bixinay. ka accounts-keeni waa kuwan. expenses-ka 3,000 baa inoogu jira tii account-kan waa all expenses, balance-guna waa 3,000. revenue-ga 5,000 baa inoogu jira, balance-guna waa 5,000. revenue-gu credit balance buu leeyahay caadiyan, expenses-kuna debit balance buu leeyahay. income summary-geeni waa kan, wax balance iminka inooguma jiraan. waxa ugu horeeya inuu xidhanaa waxa weeye revenue-ga waxaynu ku xidhanaa income summary-ga. income summary-ga iminka wuu maran yahay oo waxba kuma jiraan. balanceska revenue-ga waxaad ku wareejinaysaa income summary-ga. markaa credit bay lahaayeen caadiyan, markaad xidhayso debit baad geenaysaa. 5,000 iyo 5,000 waa iskoosanaysaa. iminka revenue-geeni wuu xidhayo zero balance weeyaan oo 5,000 kulmeeday ee halkani waxay u wareegtay income summary-ga ayay u wareegtay. income summary-ga ayay u wareegtay. income summary-gani iminka muxuu leeyahay 5,000 oo balance buu leeyahay. marka xigta waxaad xidhaysaa expenses-keena. expenses-keena 3,000 oo balance ku jira. 3,000 dhammaantood waxaad ku wareejinaysaa income summary-ga. markaa debit bay lahaayeen, markaad xidhayso credit baad tegaysaa ayaad geynaysaa. 3,000 iyo 3,000 way iskoosanayaan, balance-gi waa zero. income summary-giina waxay ka tegaysaa debit-ka, waayo intrigan credit-ka gashay debit-keedii waa kan, taa waxa weeye debit-ka gashayna credit-keedii waa kan. markaad labadan kala goyso income summary-gii 2,000 baa ku jira. halkaa waxaynu ku xidhnay income-kii iyo expenses-kii ama revenue-ga expenses-kii. income summary-geeni wuxuu leeyahay 2,000 oo balance ah. siday ku timina waad garanaysaa oo revenue-gii iyo expenses-ku intay isleeyihiin waa 2,000. 2,000 waynu ka wareejiynaa oo waxaynu ku xidhaynaa return earnings-ka. return earnings-keeni iminka wuu maran yahay, waxaynu assume garanaynaa in iminka business-ka bilownay. income summary-ga ku jiray waa laga soo wareejinayaa oo halkee loo wareejinayaa return earnings-ka. markaa dhinacana waa 5,000, dhinacana waa 5,000 waa iskoosanaysaa waa zero. return earnings-keeni 2,000 ayaa ee credit balance-ga markii hore income summary-ga waxaabaa ku jira. income summary-giina saasoo ku xidhmay. income summary account-ku kuma jiro chart of accounts-ka company-ga, waa temporary account. waxaan u samaysmaa marka closing-ka la samaynayo kamana muuqdo financial statement-keena. waxa ugu dambeeya waa dividends-kii. dividends-ka balance-kiisa waxaa lagu xidhayaa return earnings-ka. markaa dividends-keena 1,200 bay ahaayeen. 1,200 waynu wareejinaa, waxaynu ku wareejinaa return earnings-ka. markaa 1,200 dividends-kii balance-gooda way iskoosanaysaa waa zero. return earnings-keeni 2,000 ku jirtay income summary-ga ka timi 1,200 dividends-ka ka go-ayo maxaa ku hareeya 800. halkaa waxaa ku dhammaaday closing entry-gii ama closing process-kii year end-ga la samayn jiray. sidaa yare fudud baana loo xidhayaa accounts-kaaga. thank you for watching. waxaan filayaa in uu wax badan kuu taray videogani. haddii aad videogan jeclaatay please like garee, channel-kaygana subscribe garee. thanks for watching.